waa mid ka mid ah tartanada loogu daawashada xiisaha iyo xamaasadda badan yahay gudaha Soomaaliland. waxa uu dheeryahay horyaalada kale ee isboortiga waa inuu leeyahay jawi xamaasadaysan iyo xog gaara. inta la ogyahay koobkan waxa aantay ilaa hadda 4 gobol oo kaliya, waxayna kala yihiin gobolada Maroodijeex, Togdheer, Sanaag iyo Awdal. koobkii ugu horeeyay waxaa la qabtay sanadii 2002 waxaana lagu qabtay magaalada madaxda Hargeysa. koobkaas oo ay marti gelinayeen Maroodijeex, waxaana finalkiis ugu yimid labada gobol ee kala ah Gabiley iyo Maroodijeex, halkaas oo markii ugu horeeyay ay qaadeen gobolka Maroodijeex. koobkii labaad waxaa la qabtay sanadii 2003 waxaana kulanka kama dambaysta ah isugu yimid gobolada Togdheer iyo Sanaag, halkaas oo gobolka Togdheer hantay markiisii koobaad koobkan. isla sanadkii 2004 waxaa mar kale lagu qabtay Maroodijeex oo martigeliyaha ugu badan ah koobkan, waxaana markan sidoo kale finalka isugu yimid gobolada Sanaag iyo Togdheer, balse markan Sanaag ayaa tiri waa markaygii iyo maalmahaygii, waxayna halkaa ku qaadeen rikoodhaya. muddo kadib waxaa koobkii mar kale la qabtay, koobkii afraad la qabtay sanadii 2007. Togdheer iyo Awdal ayaa isugu yimid ciyaartii kama dambaysta ahayd. Togdheer ayaa noqotay markan xulkii ugu horeeyay ee markiisii labaad qaata koobkan. 5 sano kadib oo koob aan la dhigin 2011 ayaa mar kale la qabtay koobka gobolada Soomaaliland, waxaana markan miciyaha lisanayay xulka caasimadda ee Maroodijeex oo abaar koob la'aaneed haysay, waxaana finalkii gorgortan adag kadib ay ka qaadeen gobolka Hawd oo ciyaaraha markaa ugubku ahaa. sanadii 2013 waxaa la ciyaaray koobkii lixaad, waxaana mar kale iskugu soo hadhay finalka gobolada Maroodijeex iyo Hawd. mar kale ayay gobolka Maroodijeex qaaday iyaga oo noqday xulka ugu koobka badan ee haysta tiraba 3 koob. koobkii toddobaad oo ahaa kan ugu dambeeyay waxaa la qabtay 2016 waxaana markan finalka isugu yimid 2 gobol oo finalada ku yaraa, kuwaas oo kala ahaa Awdal iyo Saaxil. Awdal ayaa markana tiri waa markaygii iyo maalmahaygii, waxayna sidaa ku hanteen koobkoodii koobaad. sidaas oo ay tahayna markan waa markii 8aad ee koobabka gobolada Soomaaliland, waxaana difaacanaya oo haysta Awdal. sida loo kala qaaday, Maroodijeex ayaa ugu badan oo 3 jeer haysata, Togdheer ayaa 2 jeer haysata, Sanaag iyo Awdalna min hal koob ayay haystaan. bal waynu eegi doonaa halkay ku biyo shubato sanadkana. بهدون ayaa u seexay Bahdoon Axmed Hawiye lambarka 9aad ee xulka gobolka Awdal ayaa goolka labaad xulka gobolka Awdal u seexay markii kubad banaanka uu ka helay inta uu daadistay kubad aayar socota birta goolka jihada ku leeyahay gooli dhinaciisa galbeed birtu halka ay dhulka kaga aasan tahay ayuu isku bataraaraha ee dhulka ordaysa كبير تاسو قبل كريا يقول على حلقة قبل كساحل علي السعودي بهدول أيا قول كاللبادو سيحي حلقة قبل كأول intaa waxay noogu soo dhamaaday taariikhdii koobnayd ee aanu ka diyaarinay ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. kala soco qaybaha dambe iyo wareegga 8 dhamaad.